idulaysadee aashaguun idulaysadee tamaatiri waa shaqaystay xildhibaan axmed macalin fiqi oo kamid ah xildhibaano maanta shir jiraa'id qabtay kana hadlay xaaladda dalka ayaa sheegay inay tahay arrin laga walwalo warbixin uu soo saaray wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka wargeyska warbixinta ka soo baxday ayaa sheegaysa in dawladda Qatar ay kamid tahay dawladda falalidi xildhibaan axmed macalin fiqi oo kamid ah xildhibaano maanta shir jiraa'id qabtay kana hadlay xaaladda dalka ayaa sheegay inay tahay arrin laga walwalo warbixin uu soo saaray wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka wargeyska warbixinta ka soo baxday ayaa sheegaysa in dawladda Qatar ay kamid tahay dawladda falalidi ku ah amaanka Soomaaliya ay ka geystaan caasimadda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya xildhibaanka ayaana sheegay inay tahay arrintaasi waxaan la aqbali karin wuxuuna yiri xildhibaan axmed macalin fiqi dadka muqdishona mar kale waxaan ugu baaqayaa waxaan u soo jeedinayaa in soo istaagaan ayagu xuquuqdooda intaas ka sokay guddiga difaacan ka tirsannahay warbixin New York Times ay soo qortay ayaan runtii de concern weyn iyo walwal xoogan ugu beertay dalkan waxa ka socda iyo argagixisada iyo meelaha fanka ka hesho arintaas guddiga difaaca gudoomiyihiina waa joogaa waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan baaritaankeena iyo xaqeena ka gudanayno arrin walwal badan muujinaysa way runtii de in safiirkii dawladda Qatar la yiraahdo wuxuu ku lug leeyahay mishino iyo dilal iyo assassinations dalka ka dhacaya ayadoo maalin kasta dadka muqdisho ay la kulmaan waxyaalo noocaas oo kale iyo qaraxyo la mid ah runtii arrintaasi ka guddi ahaan anoo guddi hoosaadka difaaca arrimaha difaaca madax u ah waxaan qaadanaynaa assignment baan u qaadanaynaa baaritaan inaan gelino saxa report saxana ka soo saarno sourceska warkaasna hadduu caddaado inta laabada habboon ee laga qaadi kara arrintaasi dadka Soomaaliyeed ay ka qaataan iyo baarlamaanka Soomaaliya aan u gudbin doono marka taasna runtii walwal xoogan ay nagu muujisay arrintaasna arrin sahlan maahan arrin maaragtay la iska indha tiri kara maahan waa walwalkeeday leedahay waxaan qaadanaynaa waajibkeena ka gudanaynaa aad dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA asagoo u waramayay wariyaha Harun Macruuf oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay inay u yeereen safiirka Qatar u fadhiya magaalada Muqdisho isla markaana ay weydiiyeen su'aalo sidoo kale wasiirka ayaa VOA u sheegay inay ku qanceen sharxadii uu ka bixiyay safiirka Qatar u fadhiya Soomaaliya arrintaasi inta waa arkay ashana anaga nooga baahneen anagu wala kuleeyahay waxa laga hadlay dad ay qadariyina ayaa wax lagu tumay qoraalka naftiisa wuxuu sheegaya haddii warkaasi leeyahay sida muuqata ma ay hubaan leeyahay qadariyintiina dowladda qadarna waxay ka saartay statement ay soo gaarsiisay ay noo sheegayso inaysan waxaas ka soo toogin aysan samayn karin anagana ku qaadnay warka waa gasay statementiga ama warbixinta ay Qatar soo saartay midda warbaahinta lala wadaagay miya haddii ay taas tahay waxay beeninayaan inay wax faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha Soomaaliya laakiin si khaas ah uma dhahayaan maxaan ku idhaahdaa Qatar wax luuga kuma lahayn hadday toos ay haddii kaleba qaraxa la leeyahay wuxuu ka dhacay Boosaaso bishii May ee sanadkan statementiga arkay xafiiskooda wafaafinta midku soo saaray ayaa anaga nala wadaageen ay toos noogu soo gudbiyeen maaragtay raacayo dariiqa diblomaasiyadda safiirkooda noo keenay waana statementiga aragnayna anaga waxay karayaan in warkaas ay baahisay New York Times inuusan jirin bay adkaynayaan waxay sheegayaan shaksi qabiilka la yiraahdo oo aan dowladda masalin maxaa yidhahdaa Qatar statement bixiyey wax mas-uuliya ka ahayn labana xisaabtanayo statementkii bixiyey laakiin dowladda Qatar inaysan lug ku lahayn wax yidaabiya nabadgooyaha Soomaaliya loo geysanayo ama faragelin arrimaha Soomaaliya ayay caddeynayaan waa gartay dabcan warbixinta waad akhriday waxay leeyihiin New York Times iyagu cod baan helay
telefoon ay ku wada hadlayaan ninkan ganacsadaha ee la yidhaahdo khalifa almuhanadi iyo safiirka qatar ee soomaaliya xasan bin xamse haashim. marka inta telefoonkaas uu ku wada hadlayo waa qodob uu wargeysku uu sheegayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay safiirku marna ma naqdin qatar waxaasoo kale inaysan lug ku lahayn. marka sharaxaadda qatar waan ku qanacnaa tiri ma laga yaabaa codkan la hayo inuu xoog leeyahay oo ama ciddii duubtay haddii hay-adaha amniga yihiin hadday cid kale yihiin ma isku doodeen dowlad ahaan bal codkaa inaa heshaan si aad faahfaahin kale u heshaan haddiiba ay suurtagelayso. safiirtii waan la kulannay noo yimi oo yiri anigu kulama hadlin ninkaas kalana hadlin adina saas camal shukulna kubali waxaasna kama shaqeeyo iyo mala soo toodo inaan soomaaliya waa camal ku sameeyo meel soomaaliya qarax iyo dhida aan ka geysto. waxay noo sheegay inay raadiyeen maxaa la yidhahdaa New York Times ay weydiisteen New York Times inay tusto waxay ka hadlayaan New York Timesna ay ka diiday oo tiri waxaanu sabsiskay waxaas ma bixino iyaguna ay sidaa iskaga daayeen laakiin isagu uusan telefoon ninkaas kula hadlin arrintaas ka hadlin kana shaqayn shughulmaysan ku lahayn dowladda qatar lacag. laakiin warbixinta rasmiga ee ay qatar soo saartay marna kuma beeninayso in aysan telefoon ku wada hadlin safiirka iyo ninkaas ganacsadaha. marna warbixintu meel kamida kuma beeninayso ma dhahayso sheekadaasi marna ma dhicin. warbixinta laga yaaba inaysan qodobada uga jawaabin wixii ay maaragtay maxaa la yidhahdaa ay qortay New York Times laakiin taana ku sheegayo qatar waxay caddaysay noo caddaysay dadka caddaysay inaysan soomaaliya arrimaheeda kala gelin waxdiga soomaaliya ma aysan ka shaqeynin balse soomaaliya xasiloonideeda iyo wanaageeda ka shaqeyso. waxaa intaa helisa safiirkii siduu yimid aniga wasaaradda yimid siduu noogu caddeeyo inaysan isagu waxaa laga sheegayo iyo ninbuu la hadlay aysan run ahayn. puntland waxay codsatay maanta in baaritaan lagu sameeyo baarlamaanka ha baaray tiri ma doonaysaan idinka dowlad ahaan arrintan in la baaro? hadda baarlamaanku waxay cod fara madaxweynaha puntlandna england buu hadlaa laakiin anigu waxaan kuu sheegay mowqifka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda federaalka soomaaliya oo ah inaan ku qaraxnay maaragtay inay qatar aysan qayb ka ahayn qarax boosaaso ka dhacay ka dambeynin shaqal ku lahayn gacan ku lahayn aysan waxaas wax lamida ka shaqayn karin soomaaliyana aysan wanaag maaha taasay noo sheegeen si gaarana waa noogu sheegeen documentkii ay soo saareen